ninka ka horeeya hadduu hadalkooda yidhaahdana wax ku de waxaad tidhaahdaaba uu yaryahay marka anigu waxaan ku darayaa oo keliya Somaliland maanta haddii arrintaasi ay suuro gasho waa la qabsaday ogaada waayo dee dal muctarifa ma nihin sabab dal aan muctarif ahayn loola macaamilaana ya بسم الله الرحمن marka anigu waxaan leenahay shacbiga reer Somaliland hadalkayagu waxba tari maayo haddii aydan idinku taageerin waayo cidda aanu dee la hadlana inay ra'yiga qaadato iyo waxaanu ka qabno arrintaasi iyo dareenka aanu ka turjumayna waa kiina marka inaad saboortaan oo taageertaan ayaa la idinka baahan yahay dhulka la leeyahay maxaan ku dhahday waa la siiyay ama waa la siinayaa waa 70 kiiloomitir oo isku wareega marka intaasi waxaad u goysay dal kale macnaheedu waxa weeye dalkaasi ayaa iska leh waxa kale oo aan maqlay kirada lagu kareeyay inta hay'adooda halkan ku jirta hoteelkan dabadiisa ku jirta ayaa ka badan oo in hay'ad bixiso ayaa laga kareeyay baa la yidhi sanadkii waxaasina wax aqli galaa ma aha marka waxaan leeyahay Somaliland iyo dadweynaheegaba war arrintaasi si gaara u dareensadaan oo waan idin dareensiinanaa arrintaasi xaaladeedu waxa weeyaan ma aha xaalad sahlan wixii hore oo dhani waxay ahaayeen iska maxaan ku dhahdaay ciyaar bay ahayd laakiin tan ciyaar maaha waxay saameyn ku yeelanaysaa jiritaankeega iyo jiritaanka Somaliland ayay saameyn ku yeelanaysaa berri ka maalin haddii la yiraahdo Soomaaliya la isku soo celinaya dee ciidan baa halkan keentay oo ciidankana ayaa ku khasbi doona oo maxaan ku dhahdaay lagu adeegsanaya waxana arintu ay ka timid marka hore originalkeega hore inaga saxiixaynu waxba ma aha waxay ka soo gooday maxaan ku dhahdaay dawladda Soomaaliya ayaa ogolaanshaha iyo maxaan ku dhahdaay ay ogolaanshaha hore ka soo qaateen laakiin saxiixaynu waxa weeyaan waa iska maxaan ku dhahdaay magac u yaal laakiin saxiix macna la maaha marka waxaan leeyahay arrintaasi ha dhayalsanina